maxaa ku macnayn lahayd fahamka inta badan dadka Soomaaliyeed ay ka haystaan siyaasadda iyo dawladnimada maxaa keenay in siyaasadda Soomaalidu ay u saldhigan laadahay 25 sano kadib ama rubuc qarni dib u eegleelidii shirka carta maxaa ku muuqda adiga Cabdijibaaro waa su'aal aad u ballaaran oo maaragtay malaha kaligeed siyaasad iyo dawladnimo iyo fahamka Soomaalidu ka qabto saddex nooc bay u qaybsan tahay marka iyada kaligeeda moodaa in habeen dhan ay tahay in laga hadlo laakiin bal waxaan isku dayayaa inaan soo koobo marka hore waxaan rabaa inaan waa maxay siyaasad inaan wax ka ilaahdo dabadeedna dawladnimona maxay tahay marka ka bacdina aan fiirino bal Soomaalidu soo fahamsan tahay siyaasadda iyo dawladnimada bal saas inaan u wajahno waa maxay siyaasadii hadii marka buugaagta fiiriso waxa weeye waa sida ay go'aamada u gaaraan koox dad ah isla markaasna ay u maareeyaan arrimaha quseeya danahooda arrimaha quseeya marka kooxda dadka ah waxay noqon kartaa dawlad waxay noqon kartaa community waxay noqon kartaa cid kasta sida go'aamada loo gaaro oo isla markaasna loo maareeyo arrimaha quseeya danaha dadkaas dalkaas ama maaragtay marka dadkaas go'aanka gaaray danaha laga hadlayaana waa dano ma hadana shakhsiyehe waa danaha caamka ah oo maaragtay sida dawladdu adeegyada ay bixinayso waxbarashada caafimaadka iyo waxa la leeyahay wixii dawlad looga baahan yahay sida loo maareynayo iyo siyaasadda lagu maareynayo taas siyaasad leeyahay